بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا halkan idinku soo gudbinayaa faalo kooban oo aan ka qoray Allah u naxariistay marxuumada Hibaaq Jamaal Siciid oo 13kii bishii 3aad 2014 ku geeriyootay wadada u dhaxaysa Jidda iyo Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Arabiya iyadoo ugu dhimatay shil gaari halkaasi. Hibaaq Jamaal Siciid waa gabadh Soomaaliyeed soo martay qaybta fanka kasoo qayb qaadatay filimkii la magac baxay Haniya Hagrasho waxayna filimka wada jileen fanaanka caanka ah ee Mursal Muuse. Hibaaq jilida filimada kadib kama soo ay muuqan saaxadda fanka oo ay iskaga hadhay gabi ahaanba fankii. muddo kadib Hibaaq way ka soo haajirtay wadankii Hargeysa ayay ka soo baxday. Hibaaq waxay u soo haajirtay wadanka Sacuudiga. Hibaaq waa reer Hargeysa hore aan uga bixin dalka gudihiisa. waxay soo gashay wadanka Sacuudiga sanad ka hor. Hibaaq Jamaal waxa ay ku sugnayd Sacuudiga muddo ka badan hal sano. Hibaaq Jamaal waxay ku sugnayd Sacuudiga muddo ka badan hal sano. gaar ahaan waxa ay ku sugnayd magaalada Jeesaan ee waqooyiga wadanka Sacuudiga. Hibaaq waa ay ka soo baxday magaalada Jeesaan ee ku taala waqooyiga wadanka Sacuudiga iyadoo uu soo baxday magaalada Jidda ee ku taala galbeedka wadanka Sacuudiga. muddo yar kadib ayay ka soo baxday Hibaaq magaalada Jidda iyadoo ku soo jeeda magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudi Arabiya. Hibaaq intii ay jidka ku soo jirtay waqtigii ayaa kaabiga soo saaray oo tii alle ayaa soo dhawaatay. Hibaaq iyadoo ku safraysa wadada u dhaxaysa Riyaad iyo Jidda kuna soo jeeda caasimadda dalka waxa galay shil gaarigii ay la socotay. taariikhdu markii ay ahayd 13kii bishii 3aad 2013 maalin Khamiisa. inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Hibaaq halkaas ayay ku geeriyootay. ilaa hadda waxay ku jirtaa Hibaaq talaagada oo lama aasin. sida dad yaqaan noo sheegeen Hibaaq waxay ahayd gabadh aad u dhowrsoon, dabeecad wanaagsan, shaawiyad ah. haddaba haddaan nahay bahda warfaafinta ee ku dhaqan boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaanu halkan tacsi uga dareynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ehelkeedii iyo asxaabteedii iyo qaraabadeediiba. Hibaaq Jamaal Siciid oo ku geeriyootay Sacuudiga shil gaari waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo Hibaaq Jamaal Siciid. inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. kullu nafsi daaqatul mawt.